madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta xaadiray fadhiga baarlamaanka ee xarunta golaha shacabka markiisii ugu horeysay kaasoo ay ka soo qayb galeen 178 xildhibaan. Fadhiga maanta ee golaha shacabka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay doodda xeeroosaadka baarlamaanka oo maalmihii la soo dhaafay ay xildhibaanadu ka doodayeen wax ka beddelkeeda. waxaana halka uu ka jeediyay doodiisii ugu horeysay abid isagoo wan xasaanada xildhibaannimo. Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho dhamaadkii bishii August kadib 18 bilood oo uu dalka ka maqnaa markii looga adkaaday doorashadii madaxweynaha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay ugu weyn tahay dhisidda xisbi weyn oo siyaasadeed oo ay ku baahaysan yihiin siyaasiyiin marka hore mucaarad ku ahaa xilligii uu hayay talada dalka. Xasan Sheekh Maxamuud oo afartii bishii saddexaad 2017 loo dhaariyay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ama golaha shacabka ayaa xildhibaanada ku noqonaya tiradooda 276 xildhibaan oo uu ka kooban yahay golaha shacabku.